السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. socdaalkii geerida Soomaaliya ilaa Yurub ma aha riwaayad beena ee waa sheeko dhaba oo waaqici ah. Qofka ay qisada ku dhacdayna waa mid ka mid ah kumanyaal Soomaaliya oo qaarna meelahaas ku dhinteen, qaarna Ilaahay samata bixiyay. Waxyaabaha aad qisadan ku arki doonto waxaan u soo gudbin doonaa sida dadka ay ku dhacday uga warrameen. waxaan ku leeyahay oo kaliya qisadan waa anigoo u soo gudbiyay qaab quruxsan intaan awoodo, laakiin asalkeeda aanan waxba ku kordhin. waxaan rajaynayaa inay noqoto wax lagu cibro qaato, la isna weydiiyo yaa mas'uul ka ah dadkaasi inay dalkoodii ka barakacaan oo dariiqa geerida doorbidaan. insha Allah qisadu waxay ahaan doontaa mid joogto ah, maalin walbana aan idiin soo gudbiyo. inta aan ku guda jirtid akhrinta xalqadaha dhacdadan yaabka badan, wuxuu noqon doonaa qalbigaagu mid la gilgilma murugo darteed, dhaayahaaguna ay shumaan ilin aan dhammaad lahayn. ujeedkaygu ma aha inaan qalbiga kaa dhaawaco, laakiin waxaan doonayaa inaad ka digtoonaatid qaadidda waddada halaagga iyo dhimashada. fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad ku xirnaatid qisadan, waayo aad ayay kuu anfici doontaa. fadlan nagu dhiirigeli shayr si asxaab badan ula socoto godkan madow ee lagu dhagray xooggii ummadda Soomaaliyeed.